السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدن جمعة وناكسن sidoo kale maalin wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka aan kula wadaagno sheekooyinka xisaab badan ee Bollywood iyo koonfur Hindi maxaa ka cusub maanta waa maalintii damaashaadka Ravita Ja filimkiisa saaxiibada qiimaha badan saacadii wuxuu gaaray highest big 30,000 oo tigid ayaa la goosanaa bar hour filimka Irru muddo subaxdii hore saaka wuxuu ku bilaabay 5,000 10,000 15,000 20,000 20,000 30,000 oo tigid ayaa bar hour la iibsanaya sida hadda dabcan waa asaana hor kacayo waa wax cajiib ah meesha ka socdo Toxic oo Rock Star yaasha hogaamiyay ka huge movie ah oo maanta albaabada tigidka loo furay Irru muddo waa ka badan Toxic highest big wuxuu gaaray hadda 20,000 oo tigida saacadii la iibsanaya Ravita Ja wuxuu dhahay yaasha qamiis la sugo admaasha maanta jimcaana iskale war odaga waa soo laabtay ma what a bang biggest comeback aan caadi ahayn waa la hubaa Ravita Ja career biggest open noqon doona mar baadii saacadii uu gaaray 30,000 oo tigid bar hour la iibsanaya caawa fiidkaasi dhiman macawisle isku soo baxayaan extra shows lagu daraa sababta filimku waa la yeesay xogaa shows xataa marka hore loo diyaariyay hadda laba laab ayaa lagu daraa weekend wuxuu guda gali doonaa asoo high flying sabti iyo axad kale waraa jiri doona Ravita Ja spag marka with a bang waxa isla weekend filimkan Blackbuster ku noqona akhyaar intaas marka waa boorsamidada koowaad le waa bam in ku sina Ravita Ja anuusan scarce oo superstar-kii uu soo laabtay dan hada dib aan u laabanayna BMS ka tigidka inta laga taa isla eegayna lacagta advance book laga helaan isla eegayna sheekada filimka kadib le markaas waxa waa odaga aan u soo laaban laakiin maanta ana ba jalbeesan isla markii BMS kan ka bilaabo sababta hadda barnaamijka duwa 30 kulli mar marka Ravita Ja Faris lama gali ka calaayad xal waa soo laabanay cimaamad weyn wada maanta odaga asaar awal banika ana waa taageersan waxa u mucaaradahay le qamshax fara badan iga bashlaak hadda wuxuu la imaado wax juura oo sakuur la imaado calaayad xal isla eegna filimka halku u istaagay barta BMS ka wuxuu sameeyay saaxiibayaal dabcan tigidka xataa mar hore hadii furan lahayn waxa la Mighty Movie Makers ka badan la iibsan lahaa 19 bisha tigidka ee fureen day 1 maalinkaas waxa la iibsaday 70,000 oo tigid 20 bishana tigidku waxa la iibsaday 165 oo tigid la iibsaday 20 bishi sidaa darteed wuxuu ku istaagay final bariseelka 234,000 oo tigid ku istaagay filimka lagu magacaabo Irru muddo oo ay kaga dhigan tahay in sensational ee tabarta BMS ka gudaha India 234,000 oo tigid Ravita Ja gacanta ku haysta never in history waligeed ma dhicin barta BMS ka waxa kaaga sii daran taariikhda wuxuu noqday Irru muddo filimkii ugu horeeyay oo Ravita Ja hogaamiyay oo 10 karoor gaaro advancega worldwide waa markii ugu horeysay for the first time ever Ravita Ja filmno hogaamiyay ka xisaabta laba godla xire oo 10 karoor haysto Brazil intaan shaleemo la saar marka maanta iska day 20 kiis karoor 25 karoor worldwide collection waa haysta ama 30 karoor ugu gaaraya sida muuqato North America 300,000 oo dollarka Mareykanka iyo Brazil ku haystay marka filimka Ravita Ja waa soo laabtay maana waliba si aan caadi u soo laab saaxiibayaal 10 karoor meel noo dhiga waa la haystaa Brazil ka waqooyiga America 300,000 oo dollarka Mareykanka laga tilaabo 234,000 oo tigidna waa la gatay intaan shaleemada la saaran halahaas noo joogtay khamiis galinka dambe maanta oo jimcaha maxaa soo kordhay filimka 3 star la siina 3 xidig iyo bar waa good movie 3 xidig oo Ravita Ja helay qof istaay karma balhambo mid kale waxa la career best performance uu la imaan asla eegna marka sheekada filimka waxa laga dhahay meeluhu ku wanaagsan yahay iyo meeluhu ku liito dhag waxa waa Ravita Ja maanta maalintiisa waa saaxiibayaal haddaan soo qaadano sheekada filimka waxyaabo laga dhahay iyo meeluhu ku wanaagsan waxay ka dhigan tahay Ravita Ja waxa la horta career best performance uu la imaaday macawistiisina waa gashtay unsigiis waashatay shaatiga madaxu saartay mandaru aaday macawisle caada tafaaful noqday kan waxa la marka waxa waa filimkan Ravita Ja hatta laga yaab in bilada lagu siiyo Blackbuster-kiisana banaanka waa 3 xidig iyo saacad 30 kun la gadanayo oo tigid ah iyo weekend-gaan cidna aysan haysan bis sheekada hatta miska dhaafnaa sababta waxa waa soo u gadmay caadi ahaan bi sida dabcan loo hadalhayo anyhow marka aan soo qaadano Ravita Ja filimkiisa waxyaabo laga dhahay saaxiibayaal dhammaan shabakadaha kala duwan ee talugu horta positive sina shacabka shaleemada aadane waxa waa alaabtii bohod ajahay lagu hayo waa aad iyo aadka loo amaanay markaan soo qaadana filimkan 3 xidig iyo bar iyo 3 xidig meel kale ma u dhaxay marka by average 3 star waa in muddo kadib Ravita Ja wuxuu la imaaday film filashadiisi 100% u qalmo Priya Bhavani Shankarna ee garab siisay Baby Nakshata gabadha lagu magacaabo gabadhiisa ay ku matalayso Shiva Nirvana uu director-ka Ravita Ja wuxuu ku noolyahay tuulo iskee lagu magacaabo meel fog ku taalo adiga oo tuulo waxa waa dabcan dadka tafaafuleeyda iyo meeshaas loo soo tago sanadka la imaado Hinduuga iyo Urduflayaasha tagaano meesha adiga waxa waa cibaado ma jirta meesha ay booqdaan waa meeshaas isaga noolyahay beer yar iska le mooskiisu dabcan iska beerta gabadhiisa la doorka matalaysa Mani Mama waa Baby Nakshatra xaaskiisana dabcan waa Priya Bhavani Shankar gabadhiisu aad u jecel yahay meesha ay ku nool yihiin xitaa waxa waa meel oo dhibaatada ka jirta ma maleey kartin asna wuxuu ku matalaa doorka lagu magacaabo Trinad waxyaabaha marka tuulada hortaagan waxa kamid ah tuulo waxa waa hade oo xaalkeeda sida ay tahay ayaabaysan sida sheekada ku qoran tusaale ahaan oo kale ma balahanba meeshaas dabcan district ka tirsan tahaybo hatta Ravita Ja meeshiisa high school kuma yaalo xitaa malaha
marka la fiirsho baska waa iska gudbaa meel dhibaato badan waa iskuul yar waxa ku yeel ilmaha waxbarashada lagu baro Raviteja gabadhiisa uu geenayo gabadhiisa iyo gabdhaha kale iskuulka dhigtaan wuxuu ka ilaalinaa kuwa dabcan cabto iyo dhibaato u geysanayaan mar uu garaacaya halka problem Raviteja uu qawxay tahay qamriga iyo balaayada iyo shakeeyta waa xaas isku dhibsatay gabadhiisa dhees aabo dhibaatadan waxaan ka soo gaaray ka badan iska daa mandarkiisu iska gala dadkii markuu dabcan uu ka dhacsho markuu mandarkiisa gal wuxuu ogaanaa problemka inuu intaas uu ka weyn yahay protection ilmaha uu sameeynaa gabdhaha wax ka weyn inuu tuulada ka jiro dadkii iyo howlahaas markuu daba galay iyo afaara badan ku soo furmaayay iyo waxyaabo badan wuxuu ogaanaa oo sheekada ku jirta dhibaatooyinka caruurta lagu hayo iyo deegaanka dhibaatada ka jirta iyo marka waxa waa sheeko culus ah meesha ka jirto xitaa ninka odaga lagu magacaabo Sai Kumar gabadhiisa oo iskuulka dhigata dhibaato badan la kulmayso sheekada dhinacay ka soo galaysa dhacdadaas kalima dhacdooyin kale ogaanaa odaga waxa marka wuxuu ogaanaa problem badan gabdhaha heesto intuu ogaado ayuu isku day inuu xalliyo markaas balaayo waaweyn ku soo baxayso asagna qasab ku qasbanana inuu mandarkiis ka soo baxo oo alaabti uu galo dagaalkiisii uu ku laabto marka waa sheeko maas la fahmi karo predictable laakiin Chief Nirvana Raviteja wuxuu dhahay filimkan jinniyaha rabta isku rido dhaniyo adaa filimka ruuxidiisa boqolkiiba qofka loo daawanaa filimkan waa Raviteja hadii la dhaho plus points filimku waxay tahay Raviteja best performance uu la imaad in muddo kadib mid kale plus points waxay tahay filimkan actionada si loo sameeyo Raviteja u burrayna caadi ma aha waxa kale oo soo jeedinaya ogaada saaxiibayaal aaba iyo gabadhiisa emotion ka dhaxay caadi ma markii Raviteja laga soo tagay gabadha yar oo aaba u matalayna qofka labaad filimka ugu saameynta badan oo qaadato waxa kale oo ku sii dheer markii la fiiriyo oo filimka loo daawan doona tuulada la joogana boqolkiiba boqol waxa waa realistic waxa ka dhax muuqdo meeshan sheekadii linin oo kale ka dhax muuqato tafaafulkana aad ugu barshay dabcan dadka qaar kood u soo jiito xitaa waxa la bariya Bavani Shankar door waxay qaadatay macquul oo saameyn oo la aqbali karo dhammaan jilayaasha kan kaalintooda qaatay isku soo wado marka waxa leeyahay minus point ma leeyahay waxyaaba uu leeyahay ta filimkan si islow ku bilaabana oo indhaha ma ka galay bilaabashadiisa mid kale tan waxa leeyahay xogaa twist and tankan marka la fiiriyo filimka dab iyo holac ma qaabka sheekada qiyaanada iyo waxa dhacayeen wax predictable oo la fahmi karo ama hore loo arkay waa filmadii maaska lagu arkay anyhow laakiin waxa ku soo jiidanaya Raviteja sidoo filimkan u jilan caadiyan iyo waxa kale oo ku ceshanayo music uu sameeyay ninka odaga GV Barkerso music u garaacay iyo background uu sameeyay iyo Raviteja markii la isku helo caadi ma calay tahay production value xitaa goobaha lagu duubo heer sare waa editing qaabka loo sameeyay bella waa waqtiga xitaa waxa la waqtiga hadda uu soconaa waqti dheer ma isku soo wado marka waxa la iroo muddo kan waa kii Raviteja uu ku soo laaban lahaa performance cajiib badan inkastoo xoogaa sheekada waxay rabaacsan tahay laakiin jilinka uu sameeyay emotionka uu leeyahay music background la garaacay go for it and watch it daawo ada Raviteja taageertay qof kasta oo filimkan ku raaxaysan kara wax yar tafaafulkaas leemahan mandarka laakiin inta kale ma yaqaan tafaaful daawanin calay taxar inta hore u soo daawan waa ogeene waxaan wax ka darna arkeen laakiin odaga baashalana magaalka ku banan idinka ra'yiga ka dhiibtay in maanta maalintii ay tahay marka waa kaasay ninkii sabraasadkiisa lix falo isku xigta la sameeyay odaga ugu dambeyntii alaabtaan ku soo laabtay marka intaas ka gudbeena bal idinka ra'yiga ka dhiibtay marka waxaan soo qaadanaa saaxiibayaal hal toddobaad oo dhameystay filimka Awara Bantu shabakada caanka box office indii maqaal ka soo daabaceen iyo waxyaabaha ay ka dhaheen kan wuxuu noqday filimka ugu saameynta badan markii la fiirsho sanadkan filimada surprise ka sameeyay sababta lagama filayn meesha inuu gaarayo Awara Bantu laakiin wuxuu la imaaday business and caadin huge Imran Hashim waa soo laabtay mid kale tan shabakada xitaa caanka Saanig waxay leeyihiin sida filimkan u gadmo waxay ka dhigantahay Awara Banturi xitaa in la sameeyo karo mustaqbalka sababta huge Forest Week uu qaatay inkastoo culays uu kala kulmay marka la fiiriyo saaxiibayaal filimka Toxic oo toddobaadkan shilimooyin kala wareega laba toddobaad kali u haysto laakiin intaanaba ka badan sida hadda muuqato Raviteja Imran Hashim waa soo laabtay soo kale tan warbixintan waxa lagu sheegay in filimkan xitaa week endigan si dab walac u sii gadmi doono marka laba faa'iido filimkan qaba sida muuqato faa'iidada koowaad waxay tahay toddobaadkii koowaad feestadii fasaxii sanadka cusubna asaa winner ahay toddobaadkan labaad week endigan asaasi hogaamin doono taas oo marka ka caawinaysa filimkan sida muuqato in uu gaaro targetkiisa 150 karar waxa leeyahay 150 karar meelahaas uu gaari kara sida hadda muuqato marka let's wait aan sugano laakiin Forest Week iyo ganacsi uu ku dhameystay waxay muujinayaan sida shabakada Saanig haatan soo daabaceen in ninkan odaga lagu magacaabo aan ka sheekeynano ninka odaga dabcan Imran Hashim uu winner noqday box office indii waxay leeyihiin filimada levelka dhexe kan ugu saameynta badan noqday filimka Awara Bantu sababta toddobaadkiisii kood wuxuu ku istaagay 155 karar lacagta nadiifka sida Awara Bantu ee box office indii soo daabaceen oo ay kaga dhigantahay si oo cajiib badan filimkan u gadmay halka culaysna markasta lagu celinaa waa Toxic oo shilimooyinka la qaybsanay maane wax kale oo filimkan haatan hortaagan male mid kale tan waxa la marka la fiirshay Imran Hashim filimkiisa G9 and Gunmaster oo soo baxay November dabiiqadeeda haatan dhil fiican ee qolooyinka cadirada qaybaan u ogol yihiin OTT-ga lacag fiican ogol yihiin waxaana ugu wacan Awara Bantu iyo guusha uu gaaray marka Hashimi waxa waa sida hadda muuqato guushan oo filimkan gaaray waxay ka caawisay filimo kala duwan gacanta inuu ku dhigo soo laabtay 1 week iyo 155 karoor ninka waa ugu jirtaa
على تحل أفاريس لما قال كان أمبلي على لأنها سانق نكود وحن كأجينا هاتنا ويسو كعاي حكت دبت إذا الوالد وار كولكشن أخبارتي نقصيا ما دام فيلم كان تدبات كيس كواد جدا إندي كلي وسك قد منه وورلد وار كولكشن وسميه صدق كله حتانين كأودا قاترنا دراسة ولا فانتاستيك فارست وقاتي فيلم كان أن لو قال كريم مركو حوا أوارا بنتو ونقطة هيج وينر ونقطة سيد مقطع ترن أدراش يو سانق أسرع سنة ورت إنه مهم حكت كسر دابعين دبت إذا الوالد وار كولكشن وان ويك وحدا أوارا بنتو وابكنا وحسوقاتين ganacsigiisa inuu sameeyay saaxiibayaal 113 karoor iyo bari dhayaan lacagta ay soo daabaceen oo nadiifka ah sidoo kale tan 135 karoor world wide collection uu keenay 162 karoor world wide collection waa 162 karoor sida haatan ay soo daabaceen marka waa ugu jirtaa Imraan Hashim box office intii raali aad cafan waxay dhaheen 112 karoor waa lacagta uu soo xareey saanigna 183 karoor bari dhayaan dibad iyo dan waxay dhaheen 162 karoor iyo toddobaad kuwa soo xareey sida muuqata marka Hashimi hambaliyaan leenahay filimkiisa looma gali karo meeshaas uu mara ninka odaga taran adraashna asigan تدباتكيس كواد فيلم كان وحو كان حقت الصحة وصود دابعي وبقول يتمنى تدبات بيع لحدني لح أما بقول يتمنى سديد كرر أيو صود دابعي لكن بتوارا أو سنة دول هو جاميك هوريبل فارس ويك تدبات وحوقات بربر كلهن صوبت فيلم كان داودياش قيمة بدو حسو حري لبعتن يستقال كرر أو أي كده جنتي جبي أهم بأديوس براك واكو داي مالك ودم بس تدبات كان وحواي هل كرر حتى جناع سيس وكين ويقميستي أو أي كده جنتي خلاص مركب فيلم كان إندي بقول كي بقول واسكت ديدين واحد يعني سيد هذا موقت فيلم كان hoos u dhaca uu sameeyay tusaale ahaan oo kale xitaa baagi fori oo Ibrahim ninkii John Abraham uu sameeyay dhahay Tiger Shroff iyo attack oo xitaa sameeyay John Abraham akshama ah liska diidma boqolkiiba boqol la kulmeen ayaa maalmaha shaqada ka fiicnaya dhahan sidoo kale tan waxay dhahan filimkan ruuxiyada kuma xumeene laakiin industry indie hada sidoo u socdaa waxay tahay in gabi ahaanbo filimkan liska diid tusaale ahaan waxay dhahan waxa gadmay oo kaliya dhahan tusaale waxay soo qaateen the Tej history film dhahayo sheeko propaganda oo uu sabuuka waday oo dabcan la dhahay Hinduuga dhiseen Taj Mahal oo جهان مسلم مدرسين لدها شركات ذاتك واجع لنا بنت 20 كرور كان ذاك ريل هيستوري 2 oo asagana propaganda 45 كرور gaare marka wax allaal wixii propaganda ama anti muslim wala daawana sida hada box office warkooda runta sheegan waxay dhan filmadana 45 كرور 20 كرور keenay ذاك ريل هيستوري horane 200 كرور ka tilaabay oo pure propaganda laakiin markii film dhaxdhaxaad la keenay humanity iyo wanaaga islaamka iyo hinduuga iyo maxaa farq u dhaxay laga hadlayna oo sani dool u wado amarqana producer-ka in loo kana bare waxay ka dhigan tahay meeshaas waxaan hindi waxa la joogo xilli ugu xumaaya ka dhawaajeen batwaara waxay dhan film weyn waay dad waaweyn isugu imaadeen inuu gadmi waayo ماشي waxay marka there should be something waxba ku jiro meeshan filmkan diidmo oo dadka diideen ma ahanay inuu film xun yahay ma ahanay waa diidmo la dhahay war waxa awoodin hada anaga hinduuna ma akhbareeno la laabta amarqaan sanadol waa ku dhacday marka tan calay taala waaqic la joogo ayagoo fahansan risk u badanay riskigana saana ka soo baxday in disaster meesha uu ka yimaado toddobaadkii kuwaadna 29 karoor filmkan uu keenay qamiistina 75 lag uu keenay waa u dhamaatay marka batwaara not bad movie ma ahanay laakiin waqtigu ku soo aaday waxay tahay waqti wajiga la isku bedelnaa aan waqti karin basheeka dhaxdhaxaad ama hinduuga ama propaganda samee ama ku dhamaat wax ka dhaxay malam batwaara markaan soo qaadan ganacsigiisa world wide collection 47.62 kan xitaa content karar world wide collection toddobaadka kood uu keenay alla maxaa meesha jab dhacay rag waaweena jaban calay taxal saan aan u qalmin hinduwan u galay marka caafiyo tan waa ku dhacay mid kale filimka toxic wuxuu ku bilaabay sensational start uu maanta ku bilaabay subaxdii hore 5,000 10,000 20,000 oo tigida la iibsana ma aha maalinku shalamada saareen ogaada khamiistu soo baxa bako sabsin maqaayad la soo ordeen shabakadaha dhan waa yaabayeen the boss is back marka waa soo laabtay aan eegna baqaalka bako sabsin soo daabaceen waxyaabaha ay ka dhaheen waxay dhaheen toxic oo ku bilaawday si aan caadi ahayn sidii la filayay si ka weyn ayuu ku bilaabay advance bookingka waxaan ugu wacan hogaaminta yaash iyo saameynta waliba xitaa waxay ka hadlaan qaybta afindi waxay dhaheen fantastic way dhaheen sida muuqato qaabka hadda uu ku socdan waxaa muuqatay inuu huge start uu sameyn doono filashada la qabo waxay tahay dhaheen 30 karoor maalinkood uu ku daafurmi karaa haddii advance-ga saan uu ku socdan waxaaba laga yaabaa ka badan maalinkood inuu keeni karo yaash waa soo 30 karoor lacagta nadiifka afindiya maalinkoodaba laga tilaabo bako sabsin dileen sababtoo saanta filimkan iyo xawaara ku socdo saacadii wax la gadanayo caadi ma ahan waxay dhaheen 5 saac ugu horeysay 20,000 oo tigida barta BVR inka sample shaleemooyinka multiplix kala iibsaday taas oo ay ka dhigan tahay filimkan in dabcan maalin koowaad intuu san dhameysan 50,000 oo tigida gacanta ku haysan doona waxa sii dheer intaas waxay tahay South India markuu filimka angalka uu yahay rabsho uu leeyahay raganimada lagama mara dadka macawisleeda akshamada ee sameeyay gangastanimada aad ay u jecelin waqooyiga India saadarta waxay dhahay marka filimada nooca waxaan la jecelnahay ka dhawaajeen video kale iyo Raja Saab iyo jaanan ayagani waxaas waqooyiga kama gadmaa laakiin gangastar iyo raganimo markay arkaan oo macawisle jilaan aad ay u jecelin marka waxa leeyahay hadda sida muuqato toxic fariinta u baahan northiga waa saasa kan ticket san loo gato iyo sidoo kale yaash oo huge star tan iyo markuu sameeyay saaxiibayaal sida muuqato waxaan ka warqabnaa
shabakada tan iyo markuu sameeyay filimkii KGF Chapter 2 sidoo kale xitaa waa kana way ka hadleen Baku Sabasindi waxay dhaheen Yash Gowda oo ay ka wada Rock Star Yash waxay dhaheen waa actor saameyn badan leh waliba Delhi Uttar Pradesh East Punjab shacbiyad balaaran ku leeyahay sida ka dhawaajeen sadarta waxay dhaheen markuu hubanti ahaan actorkan wuxuu sameyn doonaa waxaan caadi ahayn Karnataka iyo Mysore iyo Tamil Nadu iyo Kerala iyo Telugu waxaas iska daayash jabka ugu jiraan hadda waxa laga hadlaa waxa waa afindigi urduflayaasha fog xitaa Yash waxa leeyahay waa qabsan doona marka toxic never underestimate wax kasta dhici doona saaxiibada qamiistan idinkan bal ra'yiina ka dhiibto waa meeshan waxba sarag la calay taxaal huge wax weyn soo socdo marka idinkan ra'yiina ka dhiibto kulli aan Yash waxa waa farahan ka qaada Faris ma gali karo waxa u jeedaa inuu qaadan doono filimkan qamiis soo socota maalin caadi ahaan magaalkan loo baneen doono marka ana soo qaadan ninka odaga Suuriya filimkiisa Fishwanaad Ansoni soo dhameystay kuwa Chaleemooyinka uu saareen Forest Week shabakada T2B xogta ay nasiyeen waxay soo daabaceen lacagta Telugu ka soo xaray waa 42 karar sheerka laga yarna waa 23.67 karar sidaas oo Telugu wuxuu ka noqday hid dhameystiran maadaama 22 karar lagu lacagtiisu soo celiyay 1.67 karar oo faa'iido laga helay Tamil Nadu toddobaadkiisa wuxuu kana 7 karar reer Tamil Nadu waa ku dhagan Suuriya ma ahane hal toddobaad filimkan hit ku noqon la marka Tamil xogaa uu gaabiskay ganacsigiisa Good World War Collection toddobaadkooda wuxuu keenay Fishwanaad Ansonis 144 karar oo keenay saaxiibayaal sheerka laga helna waa 70 karar filimkan waxa lagu iibsaday 93 karar waxa u dhiman 23 karar u dhiman ama 23 karar keenay waaya samihid lagu dhajiyaa sababtoo Ravita Jay balaayada kacay qamiis soo socday yaasha soo baxay Suuriyaani lacagtan 23 kugu maqan iska keen calay taala filimka inuu guuleysto la isku ma haysta inuu hit dhameystiran noqdo inuu weekendigan labaad gadma oo 23 karar ka maqan keena idinkan ka dhiibto marka akhyaari barnaamijkan intaas oo nooga eegay aad u maasantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh